ceelgaal waa mid ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Saylac ee gobolka Salel waxayna dhacdaa bartamaha banka lama degaan oo eekaha ee gariyaadka loo yaqaano tuuladani ayaa waxaa la degay 1932 halkaas oo sida la ii sheegay gumaystihii Ingiriisku ka qoday ceelka tuuladani loogu magac daray ee ceelgaal balse hadda loo yaqaano tuuladani ceel islaam mucjisada haddaba baryahan dambe ku habsatay tuuladani ayaa waxaa ka mid ah aasow iyo siiga aan hadh iyo habeen kala go' lahayn gaar ahaan waqtiyada xagaaga kaas oo waxyeello badan soo gaarsiiyay nolosha dadka ku nool tuuladani kadib markii ay aasmeen guryihii ay deganaayeen waxayna sida ay sheegeen ciidani ka dhalatay abaarihii dabada dheeraa ee 3 sano u dambeeyay ka dhacay gobolka Salel waa kuwani qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulada ceel islaam oo ka waramaya sida ay wax u dhaceen halka aan joogi waa dhulkii aqalkaygiina dushiisii waa ka halkan imika waa daaqadii aqalka waxani intiisii kale oo dhan waa aasan yahay aqalkan aan taaganahay waa aqalkaygii waka aasowgii baa dumiyay aasowgaasna waxaa sababay waxa weeyaan waa abaarihii faraha badnaa ee nagu dhacay marka waxaan weydiisanaynaa dawladda wasaaradda dhirta iyo daaqa iyo hay'adaha samafalka ah inay noogu beeraan dhir naga qabata ciidda aqalka markay kor u dhaafto halkaasay kala joogtay markaasuu aqalkii dumaya dushay kaga imanaysaa dusha ويكيس الأقل كان دبي تقول محمد خيال الرجال مثل اللي راباله الأقل كاسب وحاسطح مقصد دبي شو عطاش وكفر يستطيع كعسل جدا كشوك عسى الإله يفدك يسوي حتى هو كل تمجره لكن إسكي يدرك وكبها مع عيدين وكده هيودعه dawladda hoose ee degmada Saylac ayaa haddaba gurmad gaadiida u dirtay tuuladaasi ceelgaal si loola tacaalo aasowgani taas oo wax badan durba ka qabatay masiibadani dabiiciga ah dhanka kale maayirka degmada Saylac mudane Sacad Daahir Ciga Riiraash oo aan xafiiskiisa magaalada Saylac ku booqanay ayaa ka waramay sida ay ku heleen warbixinta in ay aasantay tuuladii ceelgaal wadadhow ayaa anigu kormeer ugu baxay degmada kormeerkii ayaa waxaan ku soo arkay magaalada ceelgaal oo gabigeediiba aasantay marka arkay dadkii inay ka cabanayaan in gurmad degdeg loo fidiyo kadib anigu waxaan u diray si degdeg ah si arinta degdeg wax looga qabto cagaftii iyo isku rogadii dawladda hoose labadii waan u diray wayna shaqaynayaan wayna wadayaan ilaa inta ka dhameynayaan magaalada ay ka faqayaan ciidda waxa keenay abaarihii ka dhacay gobolkan sanadkii dhawatay 2016 markii ay abaartaasi xaalufisay dhirtii deegaanka ee ka qaban jirtay ciidda ay dhamaysay ayaa waxay sababtay inay ciiddii si xorriyada ha u soo marto dhulkii guriyihii magaalada markay qabteen waxay sababtay inay ciidda halkii ku ururto kadibna ay guriyihii dul marto qaar gudaha u gasho intaa markaan dhammaystirno waxaan u baahannahay in dhulkii nabaad guuray ee abaartu ciiddii ka abaartu dhirtii ka dhamaysay in la dhireeyo kaada wasaaradda deegaanka waxaan ka codsanaynaa wasiirka iyo dhammaan saraakiisha u qaabilsan hawshaasba inay arrintaasi degdeg wax looga qabtaan maxamed cawaala daahir hoon cable TV magaalada Saylac